waxyar haddaan sooyaalka dib celinno waxaa taariikhda ku cad in markab ingiriisku leeyahay 1825 uu ku soo xidhay xeebta magaalada berbera kadibna Soomaalidii halkaa joogtay ayaa markabkii weerar ku qaaday oo gubay rakaabkii la socdayna waxaa taariikhdu sheegtay in dhagta dhiiga loo daray sida awgeed ingiriisku marnaba kuma soo degdegayn dhulka Soomaalida markiisa uu yimi wuxuu heshiis la galay qaybo ka mid ah odayaashii dhaqanka laakiin heshiiskaasi ma siin damaanad qaad rasmi ah culimadii diinta ayaa ka hor yimi markii dambena waxaa dabka qaatay oo ingiriiskii la dagaalamay daraawiish hubaysan dabku shiday sayid maxamed cabdulla xasan yeelada waqooyi ka bilaabmay wuxuu si degdeg ah ugu fiday geyiga Soomaaliyeed in ka badan 22 sano oo daraawiishu dagaal kula jirtay ingiriiska talyaaniga iyo Itoobiya waxay galeen dagaalo aad u badan oo foolka foola